waxaanu ila tahay hawshii iyo shaqadii la soo waday gabagabadeedii weeye anigoo ku hadlaya afka beesha kan nabadoonnada kan ma garanaysaa ee dadka arrintaana khusayso oo dhan waxaan soo dhowaynaynaa sida wax u dhaceen iyo bayaanka qabiiladu soo jeedisay kuna faraxsannahay codkayagiina weeye cid kasta oo maqasho warkaasna inuu warkii qabiilka yahay buu xaqiijinayaa insha allahu waxaan xaqiijinaynaa codkaasi si cod dheerna ku leenahay inuu yahay codkii beesha tanade codka ma garanaysa meeshaan ka baxayaa intaas haddaan idhi waxaan ku darayaa laba qodob waxaan jeclaa inaan jaaniskaan uga faa'iidaysto waa dadka waxaan nabad iyo amni ugu baaqayaa walaalaha ku dagaalamaya hawdka ma garanaysaa meeshii la odhan jiray magacle iyo aaggeeda cagaare nabad baan ugu baaqaynaa cod dheer baan ugu baaqaynaa waxaanu leenahay walaalayaalow amnigu innagoo dhan dembi inoo yahay nin dhintay oo wuxuu ku dhintay aan la aqoon nama anfacdo dilka joojiya wadahadal arrinta ku dhammeeya qodobkaas intaas baan u daynaya waxaan kaloo u baaqayaa dadka aan deriska nahay oo ehelka nahay oo dhulku naga dhexeeyo oo ma garanaysaa uu naga dhexeeyo degaanku naga dhexeeyo oo wada dhalashadu naga dhexayso oo diintu naga dhexayso oo wax walba naga dhexeeyaan oo reer Puntland ah waxaan leenahay annaga hadalkan hadda sheegnay maamulka Puntland baan ka sheegnay ehelka iyaga kale waxa ka sheegna ma jiraan waxaan ku baaqaynaa inay nabad inay ahaadaan sidayadii inaanu nahay waxaanu ka cabanay oo wax ka sheeganay oo aanu kala noqonnay kalsoonidii waxa weeye maamulka Puntland u matala siyaasadda aad baa u mahadsantihiin intaas haddaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu